طائفة المنصور. soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena waxaanu kaga hadlaynaa kooxu nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu inoo sii sheegay in ay soo bixi doonto waqtiga uu islaamku u qaybsamo 73 kooxood kuwaas oo dhammaantood naarta geli doona mid mooyaane kooxdaas oo ah kooxda kaliya ee naarta ka badbaadi doonta oo uu nabiyullaahi maxamed ku sheegay daa'ifatu mansuura isla markaana ay u dhaqmi doonaan sidii xaq ahayd ee uu islaamku ina faray. haddaba ila daawo muuqaalkeenan oo uu sheekh umar kaga warramayo waxa ay tahay daa'ifatu mansuura iyo xilliga ay soo bixi doonto iyo sifaadka ay leedahay ee ay kaga duwanaan doonto dhowrka kooxood ee naarta geli doona. muuqaalkeenan wuxuu inoo noqonayaa muuqaalada kooban ee aynu kaga nasanayno barnaamijkeena tusmada caalamka isla markaana aan idil socodsiinayo anigu mukhtaar maxamed diriya mukhtaar shambar. daawade ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto channelka haddaad ku cusub tahayna aad subscribe ku qabato dawankana furato weliba wixii talo ah ee aad nagu soo kordhin karto fadlan nagu reeb commentiga hoose. mahadsanid. daawo muuqaalkeena. su-aashan waxay ku socotaa sheekh maxamed cabdi umal wuxuu leeyahay saa'ilkan sheekhana maxay tahay daa'ifada loo yaqaano mansuurada sifaadkeedana wax ma nooga sheegi kartaa ma saxiix baa in daa'ifa mansuura ay ka soo bixi doonto ardu shaam. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. نبينا صلى الله عليه وسلم mar waxaa la weydiiyey markuu ka hadlay ummaddiisu inay qaybsami doonto oo 73 kooxood noqon doonto kulligeedna ay naarta gelayso ilaa mid mooye. middaasaa la weydiiyey tahay nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam hiya aljamaaca mar sidaasuu riwaayadu ku timid. mar kalena nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam waa dadka haysta aniyo saxaabadaydu waxaan maanta haysano. firqa naajiya la yidhaahdaa. طائفة المنصورة حديث متواتر كابي كتمت لا تزال في أمتي طائفة منصورة ومضى إذا لقوا إما يكوح إلهي أمر كيسا أتاغن دينك إلهي أتاغن وأذيقيسا نفتيدا مالكيدا علميقيدا وأذيقيسا إلى قيامة كتما دكوح نوعاسا ومضى لقوا إما حديث متواصل روايات كيسا markii la sugeeyo saxaab badan laga wariyo. kooxdaasi yay tahay waa dadka ku socda manhajkii nabi maxamed ka tagay salawaatu rabbi wasalaamu alayhi oo asaaskii gundhigu u yahay kitaabka ilaahay sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam dariiqii saxaabada iyo salafka saalixa. waqti ay yimaadaan dadka jidka haya ayaa waxa la yiraahdaa al-firqa an-naajiya waxa la yiraahdaa al-taifa al-mansura waxa la yiraahdaa ahlu sunna wal jamaa waxa la yiraahdaa yani muxuu ahaayay atba'u salaf waxa la yiraahdaa ashabu al-hadith wa kalimaad aan kala fogeyn macaanida hal qola loo wada isticmaalaa ahlu al-athar baa la dhihay marmarka qaarkood marka waa dadka jidka haya way. al-imam al-bukhari al-imam ahmad abdullah ibn mubarak aymadii salafku xadiidka markay fasirayeen al-ta'ifa al-mansura waxay ku fasireen dadka xadiidka nabiga raacsan salawaatu rabbi wasalaamu alayhi oo waxay leeyihiin haddaynan ahayn culimada xadiidka iyo dadka xadiidka raacsan cid kale tahay oo ma garanayn. imam an-nawawi alayhi rahmatullahi markuu fasirayay wuxuu yidhi طوائفta kala gedisan ee meelaha kala gedisan islaamka uga adeegaysa laakiin dariiqa saxsan haysa ba kulli daa'ifa al-mansura soo galay. caamada muslimiinta ee dariiqa ku raacsan culimadaas ayaguna daa'ifa al-mansura soo galeen firqa naajiya maadaama ay dariiqaasi hayaan
almuhim xilli ay yimaadaanba dadka tilmaamaha leh jidka haya ayaa magacyadaa iska leh. ilaahina tabaaraka wa tacaala haynaga mid dhigo. wallahu aclam. jazaaka allahu khayran khayra jazaa. xadiidka dhahaya yani ma jirtaa inay shaam ka soo bixi doonaan? jawaabtu waa haa. xadiidka riwaayaadkiisa qaar ka mid a ku asaxay in ay shaam daa'ifa almansuura ay jirto, waana xadiista tilmaamaysa akhiru zamaanka shaam inay noqon doonto meesha asal ahaan uu jihaadku ka kici doono, nasriga iyo guusha muslimiintu ka imaan doonto, dagaallo badan ka dhici doonaan. way jirtaa xadiidka riwaaya ka mid oo tilmaamaysa wahum fi shaam dhahaysa, wayna sugan tahay riwaayadaas. wallahu aclam.